kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan barta YouTube channelka aad naga daawanaysaan baahinteena duhurnimo taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 bisha Afraad ee Abriil sanadka 2026 qodobada aad warkeena kaga bogan doontaan hadii Ebweyno idmana waxa ka mid noqon doona dawladda Mareykanka oo la horgeeyay shuruudaha aqoonsiga Somaliland heshiiska Abraham oo ay si toos ah Somaliland ugu biirayso balse hadii la fuliyo hal shardi oo ay soo bandhigtay macluumaad dhameystiran ayaan halkan idin kula wadaagi doona wax kale oo aan qaybtan ku eegi doona diyaaradaha nooca dagaalka ah F-16 ayay Soomaaliya maanta soo bandhigtay waxaana dunida gelgelaya bandhigii iyo dawlatuskii ciidan ee ay dawladda federaalka Soomaaliya ka sameysay Muqdisho oo lagu soo aadiyay 66 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka militariga Soomaaliya khudbad dhinacyo badan taabanayso uu jeeday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinacyada uu isdul taagay ayaan halkan idinku soo koobi doonaa soo dhawaad saaxiibayaal dhamaantiina muuqaalkan meel fog gaarsiin aragtidina qaybta faalada ama commenti kaga soo dhiibta kuna soo biira barta YouTube channelka aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada aynu had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee la xogaha iyo macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan gudaha dalka iyo dibadda hagaagkan ku bilaabo dawladda Mareykanka ayaa la horgeeyay shuruudaha aqoonsiga Somaliland xilli ay muddooyinkii ugu dambeysay ay dardar ahayd howlaha la xiriira aqoonsi raadinta Somaliland marka la barbardhigo 34 sano ee weedaartay imika Somaliland waxa ay xukuumadda madaxweyne Cirro ay bixinaysaa dadaaladii ugu dambeysay ee sida tooska ictiraaf caalami ah ay u heli lahayd wakiilka dalka Mareykanka u qaabilsan ee Somaliland u fadhiya Ambassador Bashir God ayaa waxa uu sheegay in Somaliland ay si toos ah ay ugu biiri doonto heshiiska Abraham hadii ay Mareykanka si rasmi ah ay u aqoonsato dawladda Somaliland oo si toos ah imika shuruudihii ku qotomay aqoonsigeeda dhameystirtay waxa uu yiri hadii Mareykanka aqoonsado si toos ah ayaan ugu biiri doonaa heshiiska Abraham Accords waxa uu na sheegay Ambassador God in halkan ay ka jeedin doonaan dood aad u adag oo la xiriirta in Somaliland ay si toos ah u buuxisay shuruudaha ka mid noqoshada dalalka caalamka iyo in sidoo kale xilligan ay Somaliland mudan tahay in si toos ah loo aqoonsado waxaana Ambassador God oo hadal ka jeediyay dood cilmiyeed ay soo qaban qaabisay hay'adda lagu magacaabo FPRE taas oo diiradda lagu saarayay su'aalo muhiim ah haddii Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland maxay tani uga dhigan tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka heshiisyada Abraham Accord oo uu hormuud ka yahay Mareykanka ayaa horseeday in dalal dhowr ah oo Carbeed ay xiriir diblomaasiyadeed la yeeshaan Israa'iil arintan waxa ay wax weyn ka bedeshay qaraarada siyaasadeed ee bariga dhexe iyo qaar ka mid ah gobolada ku dhow hadalkan cusub ayaa muujinaya jihada siyaasadeed ee Somaliland ay u aragto mustaqbalkeeda mid ku dhisan iskaashi caalami ah aqoonsi rasmi ah iyo ka qaybgalka fircoon ee ku aadan heshiisyada istiraatiijiga ah ee caalamiga imika Somaliland waxay u muuqataa mid ka faa'iideysanaysa fursadaha weyn ee horyaala ee ay ka dhaxashay dagaalka bariga dhexe ee sida weyn banaanka u keenay muhiimadda iyo istiraatiijiyadda weyn ee ku fadhido waxaana ay u muuqataa in dalalka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu quwada weyn imikan ay ku baratamayaan sidii uu midka kale u hanan lahaa kalsoonida Somaliland marka la eego xukuumadda Somaliland ayaa albaabada u furtay dhammaan diblomaasiyiinta caalamka oo ay sheegtay inay soo dhaweyn doonto kana gadayso aragtideeda ku qotanta helista aqoonsi caalami ah oo ay sheegtay in ay geed dheer iyo mid gaaban ay u fuulayso xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiye Cabdiraxmaan Cirro ayaana ka dhabeynaya ballanqaadyadiisii la xiriiray howlihii dhinaca ololihii doorashada uu ku galay marka la eego dadaalada imikan ay xukuumaddiisu bixinayso xukuumadda Somaliland ayaa dib u qaabeen xoogan lagu sameeyay golaha wasiirada kadib markii Cabdiraxmaan Cirro uu arkay in dhiig cusub ay u baahan tahay in xukuumadda lagu shubo si loo dardargeliyo dadaalada ictiraaf raadinta oo markan u muuqanaysa mid miro dhalkeeda uu muuqanaya oo ay ka harsan yihiin in yar oo imikan si toos ah xukuumadda Somaliland ugu kaba gashatay ka dhabeenta riyada in muddo ah ay ku riyoonayeen bulshada deegaanada Somaliland ee la xiriira in mar uu calanka Somaliland ka badbado caalamka iyadoo loo aqoonsan yahay dalka madax bannaan Soomaaliya intiisa kale Somaliland
18 bisha ina soo aadan ee May waxay u dabaaldegi doontaa sanad guuradii 36 ee ku dhawaaqisteedii gooni-goosadka waxaana sanadkan la filayaa in natiijooyin waaweyn oo ay xukuumaddu ballan qaaday in halka lagu soo bandhigi doono iyo guulo diblomaasiyadeed oo ay xukuumadda Somaliland ku faani doonto isla markaana ay soo bandhigi doonto dadaaladeeda diblomaasiyadeed ee ku qotoma sida tooska ah ay u kasbatay kalsoonida caalamiga ah ee isa soo taraysa ee ka imaanaysa dalalka reer galbeedka iyo kuwa reer Yurub oo si toos ah markan u dhiiraday inay la macaamilaan Somaliland waxaana dabayaaqadii sanadkii hore ee 2025 markii ugu horeysay ku dhawaaqay inay si toos ah Somaliland aqoonsi u siiyaan Israa'iil ka gadaal markii heshiisyo toos ah ay dhinacyadan kala saxiixdeen isla markaana ay keentay amaba soo dedejisay in Netanyahu qadka teleefanka oo call video uu kula soo hadlo Cabdiraxmaan Ciro isla markaana ku dhawaaqo in uu daahfurayo aqoonsi caalami ah oo ay hesho Somaliland una ballan qaaday inuu ku garabsiin doono in ay dunida inteeda kale ay ka helaan aqoonsi caalami ah waxay soo jiidatay arintaasi sida macluumaad diblomaasiyadeed oo soo baxaya ay sheegayaan in dalalka qaarkood oo kol hore gacan ku kambad ahaa amaba ka cabsi qabay cadaadis caalami ah inay si toos ah u soo bareereen inay iyana ay la xiriiraan dhinaca Somaliland oo markan ay u muuqanayso inay isu soo tarayaan xiriirada dhinaca diblomaasiyadda ee ay helayso xukuumadda Somaliland ee sida tooska ugu qotoma guulaha iyo riyooyinkii muddada fog ay lahaayeen shacbiga deegaanada Somaliland iyo madaxdooda sikastaba ha ahaatee waxaa markaa ka dambeysa sii kordhaysa rajada iyo sidoo kale himilada ay maamulka la xiriira dhinaca horumarka ee dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha bulshada iyo sidoo kale doorashooyinka xor iyo xalaalka ah ee ka qabsooma deegaanada Somaliland oo dunida si weyn u tusaale hogeynayso isla markaana loo soo qaadanayo in dimuqraadiyad weyn ay ka hana qaaday halkaasi sikastaba ha ahaatee waxaa markaa ka dambeysa sii kordhaya natiijooyinka wax ku oolka ah iyo faa'iidada ay xukuumadda Somaliland imikan ka helayso dunida taas oo u muuqanaysa in markan rajadii ictiraafka u soo dhawaaday isla markaana mirihii macaana la guran doono dhawaan isla markaana la iska xog wareysan doono marxaladii kala duwanaa ee la soo maray dowladda Mareykanka ayaa imikan horbood u ah dalalka sida weyn looga filayo in maalmaha soo aadan ama todobaadyada soo aadan ay ku dhawaaqaan ictiraafka Somaliland halka Somaliland ay si toos ah u soo bandhigtay shuruudeeda ku xiran ku biirista heshiiska Abraham oo ay ku mideysan yihiin dalalka caalamka horboodna u tahay Israa'iil markan haddii aynu eegnana magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maanta waxaa lagu soo bandhigay diyaaradaha nooca F-16 oo 4 diyaaradood ah waxaana ay qayb ka ahaayeen dowlatus iyo bandhig xoogan oo ciidanka militariga Soomaaliya ka sameeyeen magaalada Muqdisho laguna soo beegay sanad guuradii 66 ee ka soo wareegatay asaaska ciidanka militariga Soomaaliya macluumaadka laga helayo Muqdisho ayaa xaqiijinaya in munaasabada uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxna goobjoog uu u noqday maanta dowlatuska ciidanka militariga Soomaaliya ciidamada cirka kuwa badda iyo sidoo kale ciidanka kale ee sida gaarka u tababaran ee specialka ee militariga Soomaaliya guud ahaan ciidamadan ayaa waxay soo bandhigeen gaardig ciyaar hubka noocyadiisa kala duwan gaadiidka nooca dagaalka ah ee casriga iyo sidoo kale diyaaradaha nooca dagaalka oo dowladda Soomaaliya iminkana si toos ah u haysato waxaa ka soo dhex muuqday munaasabada ama bandhigan 4 diyaaradood oo nooca F-16 ah kuwaas oo ah nooca ugu dambeeya ee diyaaradaha dowladda Turkiga ay soo saartay si toos ah ugu taageertay dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan isticmaalka agabyadan kala duwan ee military waxa ay lafdhaxaad u noqon doonaan ama lafdhabar ay u noqon doonaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee ka socda gudaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khudbad dhinacyo badan taawanaysay ayuu halkan ka jeeday wuxuuna u hambaliyay ciidamada oo uu sheegay in duruufo adag ay soo mareen iminkanse ay hayaan natiijo wanaagsan iyo sidoo kale in ay ka gudbeen marxaladii la yisi jiray ciidanka qaranka Soomaaliyeed iminkana ay u guureen marxalad isku filnaanshiyo guud iyo sidoo kale in ay soo bandhigaan cududooda iyo awoodooda military oo uu sheegay in marnaba aan la dafiri karin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay inuu kaga mahadcelinayo dalalka Afrika iyo kuwa kale ee Mareykanka iyo Turkiga taageerada lixaad kale ee siiyeen
dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda militariga iyo dib u dhiskiisa. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in sanadaha soo aadan ama bilooyinka xigaba ay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay gaari doonaan isku filnaanshiyo buuxa oo ay ku kasban karaan xaqiijinta amniga guud ee dalka iyo in sidoo kale ay ka maarmaan kaalmada shisheeye ee ciidamada qaybta ka ahayn howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan. Uu sheegay in imikan ay bilowdeen dadaalo ay ciidanka uga maarmeeyaan oo uu tusaale ahaan u soo qaatay in xarunta ugu muhiimsan ee qasriga madaxtooyada ee dalka looga arrimiyo in ay ammaankiisu sugayaan ciidamada qaranka oo uu sheegay in looga maarmay kuwii Afrika ka socday ee ku sugnaa halkaasi. wuxuu kaloo uu sheegay in amniga madaxda qaranka lagu aaminay geesiyaasha Soomaaliyeed. uu sheegay in ay ka hareen ciidamadii Afrikaanta ay kol hore xaqiijinayay ammaankooda. uu sheegay in si guud looga guuray oo iminkan laga maarmay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada ay muujiyeen dadaal iyo karti badan oo uu sheegay inay mudnaantooda heli doonaan oo uu qeexay in xilligan wixii ka dambeeya ay dawladdu higsan doonto guulo kale oo wax ku ool ah oo dib u dhiska ciidanka militariga Soomaaliya. sanadkan waa uu ka duwanaa sanadii hore qaabka loo maamusay munaasabadan waxayse ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalka marxalad kala guur siyaasadeed uu marayo. waxayse u muuqatay dowlatus ciidan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku cabsi gelinaya xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka sida dadka ka aragtida duban dowladda federaalka Soomaaliya ay qabaan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana si toos ah iminkan ciidamada qaranka u faraya inay u dhaqaaqaan dagaalka iyo dib u xureynta deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka oo iminkan ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay inay muhiim tahay in gacantooda laga saaro. waad ku mahadsantihiin ilaa gunaanadka muuqaalkan haddii aad nala soo gaarteen saaxiibadeena qiimaha badano warkan midkiisa xiga intaynu dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. muuqaalkana sheer gareeya mar kale aan idin xusuusiyo inaad subscribe YouTube-keena noo saartaan.